nasra cumar jawaabul oo ka tirsan golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xafiis dhalinyarada gobolka Sanaag uga furtay magaalada Ceergaabo waxaana xadhiga ka jiray ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga wadani Jamaal Jaamac Xaamud oo hawlo shaqo u jooga magaalada Ceergaabo waxaana munaasabadii xadhiga laga jiray xafiiskaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sanaag xildhibaano iyo sidoo kale badiba dhalinyarada xisbigaasi ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay xafiiska cusub ee dhalinyarada gobolka Sanaag loo furay nasra cumar jawaabul oo ah qofkii xafiiskaasi furay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta magaalada Ceergaabo uga furo dhalinyarteena quruxda badan xafiis ay isugu yimaadaan ay ku kulmaan oo ay taageeradooda ku soo dhaweeyaan waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa heer qaran iyo heer gobolba maral Ceergaabo oo dhan dhalinyaradeedu xafiisku uu furan yahay ka soo qayb galaan idin leeyahay meesha joogtaanba gacmo furan baan ku soo dhaweynayaa aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa dhalinyaradeena reer Ceergaabo gacmo furan isku xidhnaado waxaan jecelahay waliba inay isbarataan oo kakoonaha joogaaba barnaamijkiina siyaasadeed ay isdhex gashaan xafiiska gelin hore iyo gelin dambe uu idin furan yahay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay furitaanka xafiiskaasi ayaa dhankooda nasra cumar jawaabul ku amaanay halganka ay ugu jirto mideynta dhalinyarada gobolka Sanaag waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa xafiiskan dhalinyarada waxaanu kala u mahadnaqaynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Sanaag nasra cumar jawaabul oo noo furtay xafiiskan aad iyo aad baan u salaamayaa oo u soo dhaweynayaa marwan nasra iyo si gaar ah waxaan u salaamayaa qofkii suuro geliyay ilaahay ka sokow inay xafiiskani furmo qofkii hiil iyo hooba la garab taagnaa dhalinyarada marwan nasra cumar aad baan iyadana ugu mahad celinayaa in loo furo xafiiskii koobaad maanta taas waa guul aanu gaarnay waxaan leenahay hambaliyo furo oo marwan nasrinoo deedeeso xafiiskan dhalinyarada oo aan anagu iska leenahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa waad aragtaa sida dhalinyarada ugu taaganta xisbiga wadani waad aragtaa sidaan ugu heelanahay sidoo kalena waxaa halkaas hadalka isaga dambeeyey isla markaasina xafiiskan soo dhaweeyey mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sanaag iyo kuwa degmada Ceergaabo waxaynu isugu nimi inaynu xadhiga ka jarro xafiiska dhalinyarada waa dhalinyaro runtii deeqaali ah sidaa daraaddeed aad baannu u soo dhawaynaynaa xafiiska dhallinyaradana aad baan u soo dhawaynayaa dhallinyaro firfircoon baa xisbigu leeyahay waxaa la doonayaa mar haddeer xaruntii ay idiin diyaarisay nadri kii koowaadna uu inoo noqday nasiibna ay u yeelatay iyadu mas-uulkiinna isku kiin xidhaya xisbiga iyo dhallinyaradana waa nadra u dhisaan u furan xisbiga ugu horeeya dhalinyarada loo furo way ku mahadsan yihiin waana ku dhayin hadda gobolka Sanaag dhalinyaradeedu leeyahay barbarkay ka baxda oo bakeela qala dhalinyaro isaa isugu duubnada saa isugu jira reer ma tiidin waxa tiin dhalinyarada gobolka Sanaag oo isku duuban ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga wadani Jamaal Jaamac Xaamud oo gabagabadii halkaasi ka hadlay nasra cumar jawaabul ku amaanay dadaalka ay ka muujisay furitaanka xafiiskaasi waxaa farxad labaadii ah iyadoo maanta ay tahay xafiiskii ugu horeeyay oo loo furo dhalinyarada iyana waxay tahay farxad bay tahay nasra cumar jawaabul oo ah lafdhabarta xisbiga oo soo qaban qaabisay xafiiskan dhalinyarada ee ugu horeeya iyana aad baan ugu mahadnaqayaa haweenku dhalinyarada iyagaa dira hooyadaa soo saarta iyadaa aroortaa soo dirta iyadaa garab taagan barkhad maxamuud gedi bulsha TV magaalada Ceergaabo